koobka kubadda cagta adduunka ee Qatar Sacuudiga waa maalin walba dhacda cusub aragtaya nin maalmo kooban ku qabsaday warbaahinta Carabta iyo bariga dhexe kadib markii uu isku tilmaamay inuu yahay kombiyuutar lugaynaya la yaab Cabdiraqiib Al-Yaafici 3 jirkan u dhashay dalka Yemen ayaa ka soo muuqday mid ka mid ah telefishinada Carabta oo raay ururin ka sameeyay magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo ay ka socoto dhacdada ugu weyn adduunka ee koobka kubadda cagta ee 2022 3 jirkan ayaa sheegay inuu qaybsan yahay dhammaan dhacdooyinkii kala duwanaa ee soo maray koobka kubadda cagta tan iyo markii la bilaabay 1930 waxa uu sheegay inuu dhakada ka hayo dhammaan ciyaaraha la ciyaaray goolasha la kala dhaliyay ciyaartooyda goolashaasi dhaliyay kaararka la bixiyay iyo waliba sidoo kale garsoorka kaararkaasi bixiyay Cabdiraqiib ayaa waxa casumay warbaahinta Al Jazeera ee ugu codka dheer bariga dhexe ee Carabta Al Jazeera ayaa weydiisay su'aalo kala duwan oo ay soo diyaarisay waxayna sheegtay haddii uu ka jawaabay in la siin doono mid ka mid ah tigidhada ugu qaalisan ciyaarta semifinalka ee koobka kubadda cagta adduunka Cabdiraqiib ayaa ka soo muuqday barnaamijka shabakad ee Al Jazeera waxaana uu badi ka jawaabay dhammaan su'aalihii ay soo diyaarisay Al Jazeera ee uu ku ganay wariyaha soo jeedinaya barnaamijka hase yeeshee Cabdiraqiib kuma uu guuleysan abaalmarintaasi kadib markii uu gafay qaar ka mid ah su'aalaha la weydiiyay laakiin wariyaha soo deynaya barnaamijka ayaa sameeyay arrin aanu filayn Cabdiraqiib kadib markii uu si gaar ah isagu u guddoonsiiyay abaalmarinta laftigeeda ee uu ku waayay barnaamijka uu ka soo muuqday Cabdiraqiib Al-Yaafici Cabdiraqiib ayaa ku biiraya ragga mucjisada ah ee ka soo dhex muuqday koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 ee ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar